waxaan bartaka ka taaganahay suuqa weyn ee Bakaaraha dib waxa loo furay goobihii ganacsi ee xirnaa inta badan ganacsiga suuqa Bakaaraha oo xirmay 26 bishan ayaa maanta Sabtida dib u furmay kadib markii ganacsatada suuqaasi ay sheegeen in kooxda Daacish ay weydiisatay 30% inuu ka bixiyo qofka ganacsadaha hantida uu ku shaqeeyo hase yeeshee ganacsatada oo dhibsatay dalabka canshuurta aysan awoodin ee ka yimid dhanka Daacish ayaa xiray meheradahooda si ay u muujiyaan inay lacagtaasi bixin karin sidaana ay shaqada ku joojiyeen balse haddana ay ku qasbanaadeen inay dib u furan ganacsigooda waxaana taasi ka dambeysay in ganacsatada madax dhaqameedka heebtooda ay ugu ergayaan Daacish loona ogolaaday inay ganacsigooda dib u furan muddo 14 maalmoodna ay ku bixiyaan lacagaha canshuurta sidayna la wadaageen qaar ka mid ah ganacsatada oo codsaday inaan magacooda codkooda iyo muuqoodaba qarino haddaba saraakiisha laamaha amniga qaybahooda kala duwan oo ugu horeeyeen taliye ku xigeenada qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir Saciid Bareere taliye Cali Dhuux taliyaha qaybta Waliyow Cade Maad Cabdi Cumar Korow iyo ku xigeenkiisa taliyaha qaybta bartamaha Daahir Xaashi taliyaha saldhigga Hodan Cabdullaahi taliyaha saldhigga Holwadaag Najiib iyo ku xigeenkiisa taliyaha saldhigga Warta Nabadda Xuseen Cadceed taliyaha Jagboontiida Gurgura Kabtan Maxamed Saleebaan taliyaha nabad-sugidda degmada Holwadaag ahna taliyaha ilaalada shacabka Gaashaanle Shakiib taliyaha nabad-sugidda Hodan Luga Dheere taliyaha nabad-sugidda Warta Nabadda Caana Boor iyo Cabdullaahi Axmed Siyaad gudoomiye ku xigeenka amniga degmada Holwadaag kana socday dhanka maamulka degmada kuwaas oo dhamaantood saakay kormeer ku sameeyay guud ahaan suuqa weyn ee Bakaaraha isla markaana dib u furay goobihii ganacsiga saddexdii maalin la soo dhaafay xirnaa halka ganacsatadu ay xuseen in wali ay walaac ka qabaan canshuurtii la dul saaray waa siday hadalka u dhigeen intaasi kadib xafiiska saldhigga Holwadaag waxa kulan albaabada u xiran ku wada qaatay xubno ka socday guddiga ganacsiga suuqa Bakaaraha tariiqeedyada iyo taliyaasha waxaana taliska booliiska Soomaaliyeed ay sheegeen inay wadi doonaan howlgallada iyo kormeerka ay ku sameynayaan suuqa weyn ee Bakaaraha afayeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa kormeerka kadib bartamaha suuqa weyn ee Bakaaraha kula hadlay warfidiyeenka asagoo ciidanka booliiska Soomaaliyeed muhiimadda Bakaaraha ay leedahay awgeed u sameeyay laba saldhig oo booliis ah oo ka howlgala ilaa iyo 12 rugood oo ciidanka booliiska Soomaaliyeed ay leeyihiin oo ku yaala gudaha suuqa Bakaaraha oo ah in ammaanka la sugo suuqa Bakaaraha wuu furan yahay waa goobta hadda kala hadlaayo oo dadkan waa ganacsanayaan magaaladuna waa iska caadi suuqa jawigiisana ganacsigu wuu socdaa ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo bulshaduna way wada shaqaynayaan wax xiran oo suuq ahna ma jiro marka waxaan ku wargelinayaa ganacsatada suuqa Bakaaraha cid walba oo tabasho qabta inay la soo wadaagto rugta booliiska ee ku dhow ama saldhigga booliiska ee ku dhow mana aqbali doono goob ganacsi oo amarka dawladda aan lagu xirin inay xirnaato cid kasta oo isku dayda goob ganacsi inay amar kala ku xirto waxaan ka qaadi doonaa talaabada ku habboon ee sharciga waafaqsan waxaan u aqoonsan doonaa inay gacan siinaysa cadawga ummadda Soomaaliyeed Faadumo Cabduqaadir Radio TV-ga dalsan suuqa Bakaaraha magaalada Muqdisho